buugga Mahadho waxa qortay Faathiye Cabsiye caasha ku dabran xarigan la arkayn iyo xeeraan la aqoon. Waa buug qoran qaab sheekafaneed ah oo ka turjumay mid ka mid ah dhaqamada ay dadku aaminsan yihiin kaasoo ay ka dhigteen xad iyo xeer aan laga gudbi karin. Qofkii jabiya ama ka gudba ka dhigayo qof dambi weyn ka galay qoyskiisa iyo guud ahaan bulshada uu nool yahay. Waa buug qoran qaab musalsala ama taxano oo kala oo ka sheekeynaya wiil iyo gabadh isjeclaaday jacaylkoodana uu dabar ku noqday xeerarka ay dadku samaysteen. caasha ku dabran xarigan la arkayn iyo xeeraan la aqoon. Waxa uu ka sheekeynayaa Milgo iyo Bile. Milgo waa gabadh 26 jir ah oo ka baxday jaamacadda Stanford kana baratay cilmiga computer science engineering. waxaanay hormuud ka tahay shirkadda Microsoft qaybteeda artificial intelligence. waxa uu alla isugu daray maskax iyo muuqaal bahalkii ugu dambeysay Milgo. Bilena waa 27 jir garyaqaan ah oo ka baxay jaamacadda caanka ah ee Cornell University. aabihii waa Soomaali. Bile aabihii Kanadiid waxa uu dhintay isagoo oo 12 jir ah. waxa kaliya ee uu ka ogyahay waa inuu Soomaali ahaa. Bile waa nin Soomaalinimadu aad ugu weyn tahay. Bile aabihii waxa uu ahaa nin aqoon-yahan ah oo dalka Mareykanka wax ku bartay, jeclaana inuu aqoontiisa uga faa'iideeyo dadkiisa iyo dalkiisa. Dhibtu waxay ka timid markii uu dalka ku soo noqday in la takooray maadaama uu qabiil ahaan ka soo jeeday beesha Gabooyaha. waxa uu dalka Mareykanka ku soo noqday isagoo ciilaysan, murugadii uu arrinka ka qaaday awgeedna uu dhintay. wuxuu xaaskiisa kula dardaarmay wiilkiisa Bile wax Soomaali sheegtaba inay kala fogaato. muu doonayn ciilka iyo mahadhada ay dadkiisu ku reebeen inuu wiilkiisu dhadhamiyo. xaaskiisuna way fulisay dardaarankiisii. Bilena waxa uu ku dhex koray dad aan Soomaali ahayn isagoo qadar ah leh. jacaylku waxa loo doontay Milgo oo ah gabadh Soomaaliyada iyadoo lafteeduna ku dhalatay dalka Mareykanka, waxna ka aqoon qabiil iyo wax la haybsooco. waxa dhex maray Milgo iyo Bile jacayl aad u qoto dheer. Milgo hooyadeed ayaa jacaylka caqabad ku noqonaysa oo takoorka iyo dhaqanka qurunka u kala kaxaynaysa. buug badan oo ciil iyo naxdin iyo murugo kugu dilaya ayaad ugu tagaysaa akhrinta sheekada Bile iyo Milgo. qodobada ugu muhiimsan buugga Mahadho: inaanu jirin dabar ku xidhi kara si aad u gaadho riyooyinkaaga nololeed. 2. waalidka iyo ilmaha oo saaxiib noqda nolosha inay macno weyn u sameynayso ta waalidka iyo ta ilmaha labadaba. 3. in dirsooca Soomaalida dhexdeeda ka jira in salka iyo raadka toona lahayn uu yahay Mahadho jiilba jiil ka dhaxlo. 4. filanwaaga qofka ku dhaawaca inuu keeno kala fogaansho aan soo laabasho lahayn. 5. dareenkaaga si kasta oo loo bedelo wax loo barto noloshu ka duwanaato tii caadiga ahayd way adag tahay inuu qofku bedelo waxa uu aaminsan yahay. buug badan oo ciil iyo naxdin iyo murugo kugu dilaya ayaad ugu tagaysaa akhrinta sheekada Bile iyo Milgo. ahay murugada jacayl Mahadho makayga ku yeeshay meel halise ma mooday inuu igu soo maqayo waxaan mitidaba muqontay naftee adigu imaleegay moogayne